والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا مولانا محمد إلهي بأورت مركه ورم هذله وحكرا كنت مدن حفلة أسوق من قابسين حداتين حسب جودني فركة محايدة كم جعودان يحسك بش محايدة وقت جي ومضوا قوستي هذه أدبان دين بقادين إياه maxay ahayday waxa kale inta ku daraya ilaahay bil khayr le oo muxuu ahaa Ramadaan baynu ku jirnaa ilaahay khayrkeeda hayna waafajiyo acmaasheedana ilaahay naga aqbalo oo ilaahay aakhiriya adduunka waxay nagu anfaco inta waxaan raacinayaa waxa weeye hadal kooban oo ah Somaliland sida halka ku oran 27 sanadood bay maraysaa wixii dalkan loo horay iyo dadkan ay noogeen inkastoo aan qaba maanta inaan dadka Somaliland ku atirsanaya intooda badan ogeynba wixii ay loo soo maray iyo wixii loo horay iyo waxa maxay Somaliland ku timi oo la ilaaway oo laga gudbay oo falsafad kale loo gudbay marka waxa weeye 27 sanadood markaan soo ururiyo waxa maanta keenay in Somaliland kala jeedo oo ay 27 sanadood kadib iyadoo kala jeedo maalina wada Hussein sina wada aaminsanayn ay maxay soo gasho waxay ila tahay ninkii aqriga uu garanaya maxay kiyaan kala loo sheegi maayo waxaan leeyahay waxa weeye ummadu waxay ummad ku noqotaa waxay dhigatay ay go'aansatay markay u siman tahay wada leedahay halkeedii ay taalo cid kastoo markaa meesha matalaysaaba ama timaadaaba wixii ummadu gaadhay ay ku socoto kuma socono maalinba nimka maxay cidda meesha timaada waxay jeebkeeda kala soo baxday iskaga socotaa way noogna waxa weeye waxa kaloo inta dheer waan ku soo ururinaya waxay maanta maraysaa inay cid gaari sheegato Somaliland oo xaqiiqa oo dhaba waxaan aad u yaabaa waxa weeye markaynu meelaha ka hadlayno marqula run isuma sheegno wada ilaahayna wayna arkaya inana waynu sugnamayno run isu sheegno bal dadkan maxay runta isugu sheegi lahayn waa maxay been baynu isu sheegaynaa hadana waxaan leenahay Somaliland hadisanto Somaliland aan kana noqoto war Somaliland waxay dhisnaanaysaa markan hadalka soo ururiyo markay noqoto qarankii ummadu goosatay oo waxay u goosatay qabanaya oo wixii ay dhigatay ku socda oo la wada leeyo loo siman yahay oo la wada leeyahay oo loo siman yahay laakiin markuu 28 sanadood dhanka raray yahay ama cid gaari leedahay sheeganayso oo aan loo sinayn oo saddexda inana ee imtixaanka soo wada fadhiistay shaqo soo wada fadhiista hoosta laga eegayo qabiilku ka socdo iyo meeshu ka socdo Somaliland waxa weeyaan waxaynu isu sheegaynaa waxaan jirin waxaan hadalkayga ku soo ururaya dadka Somaliland warcada iyo cid walba waxa la iska celin karaa Somaliland ay sinaato ay wada maxay halkeedii ku soo noqoto ee la wada yeesho maaha mikrofon iyo hadal meel laga sheego ee ficilkeedii oo dhab ah uu yimaado taladeedii iyo tayadeedaba la wadaago intaasaan hadalkayga ku soo ururnay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh